odayaashu ka dhawaajiyeen ee go'aanka madaxweynaha ahaa ee nusaaka aqlabiyada ku ayidnay aan laba kala qaadno mid waa doorashada iyo kala qaadisteeda horta hadii madaxweynuhu uu sabab ka soo dhigo yiraahdo doorashooyinkii inta golaha wakiilada saabigoodii qaybinayo waqti hal ay siiyo dib ha iskula dhacaan waba la eedeyn lahaa nin yiri kursi madaxweynaha sidiisiba loogu tartamayo banaan ku yaalayo waka maalin lagu dari maayo tii wakiiladuna markaan tixgeliyay duruufaha waliba ay soo gudbiyeen stakeholders iyo dhan axsaabtii qaranka akademiyadii urradii bulshada gudidii arrimaha gudaha ee golaha wakiilada oo intuba xaqiiqo turjuman oo dadkii loo tagay tabashooyinka qabay ay u soo gudbiyeen ka go'aan gaar madaxweyne yiraahdeen madaxweynuhu go'aankii uu qaadan lahaa kii uu abid ugu dahabsanaa ka qaatay waliba wuxuu qiimeeyay uu yiri waxaan doonayaa in Soomaaliland isku soo dhamaato gobolada bariga maanta sida mugga weyn leh in jamhuuriyadda uga qayb qaataan doonaya oo loo baahan yahay in loo joojiyo la sugo la dhageysto lagu saleeyo saamiga dambe la qaybinayo horta go'aanku kaas u saaray international community uu kama yahadan muddo kordhinii hore kala loo sameeyay maanta oo dantii Soomaaliland isku soo luga duwatay inay ka qayliyaan waxaan u leenahay baroorta ogolka weyn ta kale labaad dimuqraasiga Soomaaliland ee dunida taqaano labadii doorasho ugu horeeyay hal santi kuma darsan nimanka gobolka waa doorashooyinka taariikhka noqday sideed kooxood oo kala badiyay maantana haddaad inta u dhaxaysa dhifranka iyo haddaad inta aad naga caawisaan bal la noqotaan yes we can cover it waan daboolan karaynaa igad mid baanu leenahay igad waxaanu leenahay igaday dawladaha Afrikada bari ku bohoobay hadday dalalkii Soomaaliyeed ee gacantooda ku jiray ka maarmeen inay leeyihiin Soomaaliha isku soo wada celiyo Soomaali galbeedteedii iyo NFD-deedii iyo maxaan ku raadayay shantii Soomaaliyeed ee Soomaaliland isku sadqaysay hadday hayaan yes welcome hadday leeyihiin waanu haysanaynaa oo jigjigana waxa laga xukumayaa Addis Ababa Gaarisana waxa laga xukumayaa Nairobi de waxaan leenahay xeerka Nairobi hoosteeyay Gaarisa ee jigjiga hoos geeyay Addis Ababa iyo Soomaaliland iyo Soomaaliyana laba dal oo walaalo isaga yaala ka dhigay shaqra ay oo tan saay ee Djibouti gaar ka dhigay yes waxaan leenahay oo kuwii dadka hadday madaxda Soomaalida maanta nasiib darrada ku dhacday ee fahmayaan igad laba ujeeday ka leedahay inay deedafayso jiritaanka Soomaaliland ta koobaad inay midnimadii Soomaali weyn ee la doondoonayay ku sargoysay tiraa waxay ku ekaydeen labadan gobol Israaciilka Hargeysa iyo Muqdisho dawladda ka dhaxayso oo Soomaali weyn midnimadeeda ay inta yani nihaayaddeedii inta ka dhigto qodobka labaad hadii Soomaaliland la aqoonsado oo dawlad caalamka ay qoys ka hesho oo urur goboleedka igad la fadhiisato taa macnaheedu waxa weeye urur goboleedka igad saddex dal oo Soomaaliyeed baa xubna ka ah vote baa la isku boqoomiyaa ujeedooyinka dawladaha Soomaalidu leeyihiin baa majority priority yeelanaysa taama doonayaan qolada iyaga waxaan nasiib darraa madaxda Muqdisho fadhida inta fahmila iyadoo Jomo Kenyatta NFD qaatay iyo maantana Uhuru Kenyatta badii Soomaalida intii kheyraad ku jiray qaadanaya waxaan nasiib darraa hadaba ninka Xasan Sheekh ku qanacsan badaadana waan qaadanaya loo yacdanaada xukuuman ku oranaya jaadkana fasaxo Muqdishaan ku ugu yimid waa ayaan darrada Soomaali ku dhacday waa garashada yar ee aad ka u dhuuban ee uu ku qanacsan yahay منك فهم لا بانك يحاسك اللي نابا مركو نفك شيء قليل وإلمية وهو كيان تمركو كسو سارية مقدشو من دمد الصومالية والله متخطان وبدي الصومالية ده ما تفرطي سنة أبي هرود عيدول كي الصومالية ده NFD لورنشي منك كوكا نعساني ديك تقول له ليه رمتي وقاطي إن لو هيلية وقاطي كاسا يندر رئيسة صومالية انت نوع على حرين وإيمان أيو قف صوماليا ومدحوينة ودوريست شعبك الصومالية كيو maaha inaan Qatar wada tayo inaan Kenya wada tayo inaan Djibouti wada tayo inaan Ethiopia wada tayo maaha inaan sidii aynu inagu u dooranayna madaxdeena ee Cabdiraxmaan Tuur madax inoogu hay inagu inaga soo dhaxbaxay ee cigaal inagu aynu sameysano inagu inaga soo dhaxbaxay ee rayaal inaga inaga soo dhaxbaxay siilaan inaga inaga soo dhaxbaxay qof sidaa madax banaan baa danaha ummadda Soomaaliyeed ka talin kara laakiin nin sirdoonka Qatar baa lacag siiyo soo saaray iyo Ethiopia wada tayo leeyahay waa garashayridaas ma madax banaana مقدشة وحنا مرتي وجويه هاي مسافيني وحنا مرتي وجويه هاي ملص محل كان مكعوسة بس هاي السلاسة عصب وحنا مرتي وجويه هاي هو كينياتا بقص يجا إلى علينا إياه هل كان شركة اللي جوه هاي نبتقليه دي سين نبتقليه ده بعيد مدة ده إلى المساعد إلى حد مركب مركون مدح بناني فكرية ما مدح بنانا قرشان ما مدح بنانا ويهدم مدح بنانا يعودون له الصومال لان أنا جا وضع هذا المصعد أمام يستيدن أمام دي بيشين يدك وتاني بكون عصبة بابا يسأل يجوجي
يقدر وحنا بينتنا دي بس سبعة سنة دليل بدأ هذا نوع ندعينا سو إلى لو يعدنا هذيك حكومة نقول أورانينا يقدر عرفت ذاك قابني حسن شفيت يساق سو ما ده هو مسلم وانكرنا السلام عليكم